kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo baahi news warbixinadii ugu waaweynaa ee caalamka gaar ahaana marinka Gaza ayaanu idiin soo gudbinaynaa qodobada aan idin hayno waxa ugu waaweyn kooxda baarlamaanka Israel oo bilaabay olole ka dhan ah maalgelinta hay'adda qaxootiga ee Falastiin, Netherland, Sacuudi Carabiya iyo wadamo kale oo cambaariyay baaqa Israel ee musaafiriinta qasabka ee Falastiiniyiinta. Anthony Blinken oo lagu wado booqasho kale oo bariga dhexe iyo warbixino kale oo aan soo ururinay ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ayaan ku horreynay isbahaysiga xildhibaanada Israel ayaa isku dayaya in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ay ka mamnuucaan Gaza, iyagoo ku andacoonayo inay tahay qalab ay leeyihiin Xamaas sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay wargeyska Israel ee Hayom. Xilli ay u waramaysay jaraa'idka, xubin ka tirsan baarlamaankan ololaha baarlamaanka ee dib u habeynta ka tirsan ayaa sheegtay in ay la kulantay xubnaha kale ee baarlamaanka si ay isugu dayaan in ay hortaagaan lacagaha dalalka kala duwan ay ugu taageerayaan ururkan islamarkaana ay ka rogaan daaha. UNRWA waa hay-adda gargaarka ugu weyn ee ka howlgasha marinka Gaza ee go'doosan, halkaasi oo qiyaastii 1.9 milyan oo Falastiiniyiin ah oo barakacay ay u baahi qabaan cunno, hoy iyo sidoo kale dawo. agaasimaha hay-addaasi ee Gaza dabiiqadii bishii tagtay ee December waxa uu soo dhigay qoraal barta Twitter-ka kaasi oo walaac kaga muujiya xaaladda dadka Gaza, kuwaasi oo wajahaya gaajo daran iyadoo 40% dadka ay halis ugu jiraan macluul. halka haddii aynu kaga nimaano warbixintaasi, dhanka kale waddanka Netherland ayaa dhaleeceeyay hadallada wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka maaliyadda Israel ee ku aadan in Falastiiniyiinta ay si iska uga qaxaan marinka Gaza, iyadoo ku tilmaamtay hadalladaasi la yiri in ay hayeen kuwo ku dheehan mas-uuliyad darro. Netherland ayaa ka soo horjeesatay baaq kasta oo ku saabsan barakacinta Falastiiniyiinta ee Gaza ama in qayb ka mid a dhulka reer Falastiin laga faramaroojiyo, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Tani kuma habboono xalka mustaqbalka laba dowladood oo leh dowladda Falastiin oo shaqaynaysa iyo dowladda Israel. Arbacadii, waddanka Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale cambaariyey hadalladaasi, waxayna ku nuxnuxsadeen muhiimadda ay leedahay dadaalada caalamiga ee si Israel loola xisaabtamo. boqorka Urdun Boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Masar Cabdalla al-Fattaax al-Sisi ayaa sidoo kale diiday tallaabo kasta oo Israel ay ku doonayso in ay Falastiiniyiinta kaga ceyriso Gaza iyo daanta galbeed la haysto. dhanka kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa in uu booqasho kale ku tago gobolka oo ay ku jirto in uu siyaarto waddanka Israel, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP-da. tani waxay noqonaysaa booqashadii afaraad ee uu ku tago bariga dhexe tani markii uu bilowday dagaalka Gaza, iyadoo Mareykanka uu la tacaalayo sidii uu isu dheelitiri lahaa isbahaysi carabeed oo xiriirsan, iyadoo dhanka kalena dalalka carabta ay ka caroodeen tallaabada Washington ay si buuxda ugu taageerayso Israel inta uu socdo dagaalka Gaza. isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ee ku sugan badda cas ayaana weli wax ka tarin Xuutiyiinta Yemen weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsi ee halkaasi mara. dhanka kale, waxaa sii xoogeysanaya iska horimaadyada u dhexeeya Israel iyo dagaalyahanada Xisbullah ee dhanka xuduudda. wixii warkaasi ku soo kordho safarka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ee bariga dhexe, halkan ayaanu ku soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda laga helo. qodobada kale ayaanu isla sii eegaynaa ee ku saabsan dagaalka marinka Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed. waxyaabihii ugu waaweynaa ee saacadihii aynu ka soo gudubnay aad looga hadalhayay, halkaasi ayaanu isla eegaynaa. aan ku horreynay ugu yaraan 14 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay, halka tiri intaasi ka badanna lagu dhaawacay weerar lagu qaaday guri ku yaallo magaalada Khan Yunis ee halkaasi. dhanka kale, tiro ka mid ah ururka Xisbullah oo gaaraya ilaa 9 ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen duqeymo ciidamada Israel ay ku qaadeen xuduudda Lubnaan. Xisbullahi waa hogaamiyaha Xisbullahi Nasrallah ayaa sheegay in dagaalyahanada ururkaasi aysan ka baqaynin in ay dagaal kala hortagaan ciidamada Israel, balse ay iyagu diidan yihiin in ay ku dhawaaqaan dagaal islamarkaana xiisadan ay sare u qaadaan. xilli maalmihii aynu ka soo gudubnay aad loo hadalhayay dilka Saalax al-Caruuri oo isagu ka tirsanaa ururka Xamaas. tirada dhimashada ciidamada Israel ay ilaa imika dhankoodu laga diiwaangeliyey ee shacabka ay kula kaceen Gaza ayaa gaaraysa 22,313, halka dhaawac uu dhan yahay 57,296. dhanka kale, dagaalkan oo bilowday 7 Oktoobar ayaa la sheegayaa in dhimashada ciidamada Israel
ay sii cagacagaynayso 139 inkasta oo tirada halkaasi ay kasii badnaan karto. waxyaabaha kale ee iyaguna warbaahinta Gaza ay saacadihii aynu kasoo gudubnay soo saarayso waxaa qayb ka ah maalmihii aynu kasoo gudubnay waxaa walaac laga muujinaya xiisadda sii kordhaysa ee marinka Gaza, iyada oo dowladda Gaza ee Falastiin ay walaac ka muujinayso dhimashada ulakaca ee shacabka halkaasi ku dhammaanaya. waxaana ay sheegeen in ciidamada Israel ay shacab markaasi ku laayeen marinka Gaza, gaar ahaana caasimadda Rafah. tirada dhimashada saacadihii aynu kasoo gudubnay wasaaradda dowladda ka tirsan ay sheegtay waxay gaaraysa 31 qof. sidoo kale dhulkan la haysto ee daanta galbeed ayaa iyaguna laga soo tabinaya weerar kala duwan oo ciidamada Israel ay kula kacayaan saacadihii aynu kasoo gudubnay. dhanka kale waxaa iyana la arkayay shacabka Falastiin oo iyaguna magaalada Rafah markaasi halkaasi ku sugan, iyaga oo biyo dhaamin ku sameynayo gudaha magaaladaasi, gaar ahaana Khan Yunis. waxaana dhanka kale jira walaac la xiriiro in gargaarka bini'aadanimo ee shacabka halkaasi aanu weli sida loogu talagalay aysan u gudoomin. dhinaca kale Maraykanka, gaar ahaana magaalada California, waxaa laga soo tabinaya mudaharaadyo kala duwan oo gelgelay magaaladaasi oo shacabka markaasi ku dhaqan waddankaasi Maraykanka ay iyagu uga soo horjeedaan Israel iyo dagaalada halkaasi ka socda, gaar ahaana iyagoo ku cambaarenayo weerarada iyo xasuuqa ka dhanka ah shacabka reer Falastiin. qaar ka mid ah dadka mudaharaadayaasha ee lagu arkayay gobol ka tirsan Maraykanka ayaa isugu soo baxay golaha wakiilada ee baarlamaanka California, halkaasi oo ay ku andacoonayeen in ay doonayaan in Israel ay joojiso dagaalka ka dhanka Gaza. wixii warkaasi ku soo kordho iyo warar kale oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono waad ka bogan doontaan haddii Rabbi raali ka noqdo. warbixinada kale ayaanu sii marin doonaa. saacadihii aynu kasoo gudubnay qarax ayaa laga soo sheegaya caasimadda Rafah ee ka tirsan Gaza, gaar ahaana galbeedka caasimaddaasi oo la sheegaya in duqeymo kala duwan iyo sidoo kale qaraxyo waaweyn ay ka dhacayeen oo lala eegtay guryaha ku yaala halkaasi. waxaa iyana la arkayay magaalada xeebta in boodaha amaba aan yiraahdee qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku dhaqan iyaguna ay aad walaac uga muujinayeen dhawaqa qaraxa iyo sidoo kale inta badan gantaalada lala eeganayo doomaha halkaasi mara. waanu soo gudbin doonaa wixii warkaasi kusoo kordho. shacabka dadka inta badan gacanta ay ku hayaan ama ay qafaasheen ciidamada Israel ayaa iyaguna walaac ka muujinaya xaaladda qaar ka mid ah dadka laga qafaashay, iyadoona ay sheegeen in intooda badan dil iyo sidoo kale jirdil lagula kacayo. wixii kusoo kordho waan soo gudbin doonaa. iyana waxaa mashquul si aad ah looga dareemayaa ama waxaa hoos u dhacay baa laleeyahay mashquulkii xeebtaasi Suez Canal maalintii saddexaad tan iyo sanadii 2023 aynu kasoo gudubnay. tani waxay daba socotaa cabsida ku aadan ciidamada xuutiyiinta oo dhowaanahanba xeebahaasi la eeganaya qaraxyo iyo sidoo kale gantaalo qaar ka mid ah maraakiibta halkaasi mara, kuwaasi oo intooda badanna ay taageerayaan ciidamada Israel. wixii kusoo kordho warkaasi waanu ku gudbin doonaa haddii Allah ugu laga helo. fadlan inoo subscribe garee, like garee muuqaalkan. wixii kusoo kordho waanu eegi doonaa. waxaad isku daydaa in qaybta faallada hoose ee commentiga aragtidaada aad noogu qorto, waanu soo badin doonaa muuqaalada kale ee aanu soo gudbin doono.